waxaan rabaa xoogaa yaroo dhaliila inaan usoo jeediyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka cabtaan shaqo la'aan. Anigu ma qabo qof dhalinyaro ah oo ama dalka ku nool ama dibadiisa ku nool, gaar ahaan kuwa dalka ku nool inay shaqo la'aan noqon karaan ma qabo. Qofkan ugu yaraan waa nool yahay, waa cunaa, waa cabaa, waa jeeftaa, waqtina waad haysataa. haddii aad weydo fursad shaqo oo mushaar lagu siinayo, waxaadan weyneyn mid aan mushaar lagu siinin ood ka shaqayso si volunteer aad uga shaqayso ama si mutadawacnimo aad uga shaqayso ma weynaysid. shaqo marka la qabanayo looma shaqeeyo oo qura inaad mushaar ku qaadato. waxaa loo shaqeeyaa waxyaabo fara badan, inaad dalkaaga u shaqayso, inaad waayo aragnimo ku kasbato and so on. marka kaliya waxaa kaa maqnaan kara inaad mushaar qaadato. wax badan ay kaa saacidaysaa marka inaad si volunteer ku shaqayso. waxaan rabaa qashar inaan idin siiyo. dowladda federaalka hadda waxaan ku jirnaa annagoo runtii dhalinyaro ah oo group golo wasiirra ah. markaan dhalinyaro leeyahay, marka loo fiiriyo dastuurka dhalinyarada Afrika, haddaan qaldanayn wuxuu qeexayaa ilaa 35 intay ka gaarayaan dhalinyaradu waa dhalinyaro weli. marka backgroundka dadka dhalinyarada ee ka shaqeeya dowladda federaalka Afrika dhammaantood waxa waaye dad si volunteer ku soo shaqeyn jireen muddo fursadii ugu horeeyana ayaga helay. marka waxaan idinka codsanaa inaad si volunteer ugu shaqaysaan haddii aad weydaan xataa fursado shaqo oo ma garanaysa aad mushaar ku qaadataan. taa waxaan ula jeedaa inta badan fursadaha shaqo marka la soo bandhigo, waxyaabaha requirementska ee ku qoran ee ugu horeeya waxa waaye khibrad ma leedahay, ugu yaraan 5 sano 10 sano aan waxaas oo kale ku qoran. taas waa idinka xalinaysaa. waxaa kaloo idinka xalinaysaa inaad noqotaan dadka ugu horeeya fursadaha shaqo ee soo baxa ma garanaysa u hela fursad. waxaan rabaa in aad dareentaan haddii la dhihi jiray xogaa dhalinyarada dowladdu ma siiso muhiimadii la rabay. maalmihii shirku idiin socday, madaxdii dalka ugu sarreysa oo dhan waa idin yimaadeen, golihii wasiirada waa idin yimaadeen intooda badan, madaxweynihii, ra-iisul wasaare, yani cid idinka maqneeda ma jirin. marka taa waxaa ka dareemaysaan dowladda federaalka ahi inay muhiimad runtii gaara siinayso. anoo runtii aad ugu mahad celinaya agaasimaha madaxtooyada oo aan ogahay inuu wasiirka ula shaqey jiriyay sidii inuu wasaaradda wasiirka iyo kale ula shaqey jiray muddadii arrinkan laga shaqeynayay, waana agaasimihii madaxtooyada oo dalka ugu sarreysay. marka guud ahaan waxaad dareemaysaan in muhiimad la siinayo. waxaa kaloo aan media ku arkaya maalmahan arrimihii wiilka halkan ka hadlaya uu ka dhawaajiyey ee ahaa qurbo joog iyo qaran joog. runtii ma qurux badno, laakiin haddana markii la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed wixii ay isku xifaalay jireen waxay ahayd reer iyo reer qolci reer qansax. marka waxaad moodaa dhankaas marka laga fiiriyo inuu progress jiro oo yacni tilaabo muhiim ah laga soo gudbay. waxaan rabaa xoogaa yaroo dhaliila inaan usoo jeediyo dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka cabtaan shaqo la'aan. anigu ma qabo qof dhalinyaro ah oo ama dalka ku nool ama dibadiisa ku nool, gaar ahaan kuwa dalka ku nool inay shaqo la'aan noqon karaan ma qabo.
qofkan ugu yaraan waa nool yahay waa cunaa waa cabaa waa jeeftaa waqtina waad haysataa haddii aad weydo fursad shaqo oo mushaar lagugu siinayo waxaadan weyneyn mid aan mushaar lagugu siinin ood ka shaqayso si volunteer aad uga shaqayso ama si mutadawacnimo aad uga shaqayso ma weynaysid in shaqo marka la qabanayo looma shaqeeyo oo qura inaad mushaar ku qaadato in waxaa loo shaqeeyaa waxyaaba fara badan inaad dalkaaga u shaqayso inaad waayo aragnimo aan media ku arkaya maalmahan arrimihii wiilka halkan ka hadlaya uu ka dhawaajiyey ee ahaa qurbo joog iyo qaran joog in runtii ma qurux badno laakiin haddana markii la fiiriyo dhalinyarada Soomaaliyeed wixii ay isku xifaalay jireen waxay ahayd reer iyo reer qorci reer qansax marka waxaad moodaa dhankaas marka laga fiiriyo inuu progress jiro oo yacni tilaabo muhiim ah laga soo gudbay kusoo shaqay jireen muddo fursadii ugu horeeyana ayaga helay marka waxaan idinka codsanaa inaad si volunteer ugu shaqaysaan haddii aad weydaan xataa fursado shaqo oo ma garanaysa aad mushaar ku qaadataan taa waxaan ula jeedaa inta badan fursadaha shaqo marka lasoo bandhigo waxyaabaha requirementska ee ku qoran ee ugu horeeya waxa waaye khibrad ma leedahay ugu yaraan 5 sano 10 sano aan waxaas oo kale ku qoran taas waa idinka xalinaysaa waxaa kaloo idinka xalinaysaa inaad noqotaan dadka ugu horeeya fursadaha shaqo soo baxa ma garanaysa u hela fursad waxaan rabaa in aad dareentaan haddii la dhihi jiray xooga kasbato aan soo marka kaliya waxaa kaa maqnaan kara inaad mushaar qaadato wax badan ay kaa saacidaysaa marka inaad si volunteer ku shaqayso waxaan rabaa qashar inaan idin siiyo dowladda federaalka hadda waxaan ku jirnaa annagoo runtii dhalinyaro ah oo group golo wasiir ah markaan dhalinyaro leeyahay marka loo fiiriyo dastuurka dhalinyarada Afrika haddaan qaldanayn wuxuu qeexayaa ilaa 35 intay ka gaarayaan dhalinyaradu waa dhalinyaro wali marka background-ka dadka dhalinyarada ee ka shaqeeya dowladda federaalka Afrika dhamaantood waxa waaye dad si fulinta dhalinyarada dowladdu ma siiso muhiimad dil rabay maalmihii shirku idin socday madaxdii dalka ugu sareyso dhan waa idin yimaadeen golihii wasiirada waa idin yimaadeen intooda badan madaxweynaha ra'iisul wasaare yani cidin ka maqleeda ma jirin marka taa waxa ka dareemaysaan dowladda federaalka ahi inay muhiimad runtii gaar ah siinayso anoo runtii aad ugu mahad celinaya agaasimaha madaxtooyada oo aan ogahay inuu wasiirka ula shaqay jiriyay sidii inuu wasaaradda wasiirka iyo kale ula shaqay jiray muddadii arrinkan laga shaqaynayay waana agaasimihii madaxtooyada oo dalka ugu sareysay marka guud ahaan waxaad dareemaysaan in muhiimad la siinayo waxaa kaloo